marwo kaltuun xaaji daahir cilmi cigaal oo ka ahayd xaaskii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa sheegtay in gurigeega xalay toole dab la qabadsiiyay iyadoo sheegtay in uu gurigeega u soo dhacay isla markaasna ku rusheeyay batrool uuna qabadsiiyay dab. haddaba waxay kaltuun ka warramtay sababta keentay dabkan iyo weliba sidii loo xakameeyay iyadoo la hadashay qaar ka mid ah warbaahinta. waxay tiri faahfaahin badan kaama siin karo waayo annaka hurudna baan dabka ku war helnay markaa inaan baa halkan jiifay inankiin baa qayliyay waana soo kacnay markaa dabkii waa lagu guuleystay in la baqtiyo qoladii dabdamiskuna wayna soo gaadheen deesaasi sheekada ku bilaabmatay qayladina humaan ku kacnay markaa xilmaha timeka ee waqtiga dabku around 1 o'clock baad ilaa kowdii habeenimo markaa maxaa kiciyay dabku maanaysa in kastoo intuusantiin say wax u jiraan bad maanaysa wallahi dabku wuxuu dab la dhaliyo gacanta lagu dhaliyay markaa nin baa cararay markuu inaan ku soo baxay halkan gidaarka ka dhacay ee muu qabanin xaggii dabku u jeestay laakiin ninkaas sababay dabka qof baa halkan ka cararay oo ka tagay xataa wixii uu dabka ku sameeyay oo CID da qaatay alaabtiina waxa la timid yalla may dhaganin laakiin waanu gaadhnay dabka intaanu guriga wada qabsan oo qaybta ku ekaaba la gaadhay inamadii baqtiyeen dabkana waanu afkoranay leerkana alxamdulillah de waxa weyn aan attempt bay laakiin ahayd de ilaahay baa baqtiyay attempt bay ahayd isku dayga weeyaan waa attempt of murder weeyo kale weeyaan marka waxa weyn qofka wax dilay iyo qofka isku day way same qof isiri aqal gub uu bareeray qofkaas inta qof aqalka ku nool inuu khaarijiyo uu bareeray waay marka guriga joogtay dadku mise guriga wad ka maqlay ma gurigan ku jiran waan hurnayo markaas uu baaban anigu saxdan leerka baqtiyay laakiin waan yar gamay marka way jiraan ciidan u tuunsan hore noo handiday hore noo soo weeraray hore hub ula baxay ayaa jira laakiin bal gacanta xukuumadda ayaan u dhaafayaa baaritaankaana waan u dhaafayaa war faahfaahsanna waan bixin doonaa insha Allah waxa weyn 17 sanadood weeyaan imka inta sheekadaasi taagnayd cid wala Soomaaliland joogtaaba waqti way ka dheergsan tahay cidna imka magacaabi maayo cidna oo aanayn maayo cidna ku canaanan maayo laakiin waxa weeyaan in waxaan u dhaafayaa baaritaanka xukuumadda ay gacanta ku hayso wixii ka soo baxba Faisal Yusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.